jacaylka ha guulaysto ha waaro. Soomaaliya jacaylka aniga gabadhii xabsaa waa si joognaa, xaaskay waa si joognaa. Noo soo duceeya intiina taageersan. jacayl waa dhimbilo, waa dhamac la shiday, kuna dhalaalinayo dhib yaraantuu kugu helay, ma dhedhemiyo oonko adaa dhayaaya nabarada dhakhtaradu ka quusteen. sheekadeena maanta ma aha inaad iin furno galalka guungaarka ama faalooyin kale. waa gunaanadka maalmo silsilada ahaa oo halkan kusoo gabagaboobay. waa ay ka baxayaan xabsiga, waxaana ay gelayaan nolol ka duwan tii hubanti la'aanta ahayd ee argixisadu biday lamaanahan, waxaana ay leeyihiin nasiib gaar ah oo ay dadka Soomaaliyeed qalbiyadooda ay ka heleen, iyo dowladda si gaar ah u tixgelisay da'dooda iyo duruufta maanta isku keentay. taariikh tirsiga maalintan 8 bisha Febraayo 2025 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa go'aamisay in xuriyadeeda la siiyo Xafsa Maxamed Macalin Cali Xasan 17 jir ayna Xawa Macalin Nuur Axmed ku dhalatay degmada Xudur ee gobolka Bokool, maadaama lagu waayay eedii loo haystay. hadal yari iyo qiiro farxadeed oo wadaag ah ayaana hareysay maalinta xuriyadda Xafsa ee uu sabaysaygeeda Abshir. waana tan Xafsa Maxamed Macalin oo in la wadaagtay dareenka kaliya ee jira maanta. Abshir Aadan Maxamed oo Soomaalidu ay la tiirisay cilmi boodharigii Berbera ayaa dowladda iyo shacabka uga mahadceliyay garab istaagii loo muujiyay, waxaana uu baaq u diray saaxiibadiisa duurka ku jira. Alxamdulillah, waa ku faraxsanahay maxkamadda sida noo sharaftay oo ani xaaskay hornimadeeda noo siiyay, waa ku faraxsanahay. Alxamdulillah, waxaa u mahadcelinayaa dadkii arrintan ka qayb galay oo noo soo rigeliyay inay noo fuliyaan. marka dowladdana si wanaagsan noo soo dhaweysay, waana ku faraxsanahay. dadkii arrintan hays oo kale hays waxaa ka faa'iideystaan fursaddan oo hadda idin muuqato. ani xaaskayga hornimadeeda waa la siiyay, waana ku faraxsanahay. marka dowladdan ugu mahadcelinayaa. qofkii arrinta aniga haystana waxaa la rabaa inuu fursaddan ka faa'iideysto oo macnaha sidii reerkiisa u midoobi lahaa. waxaa waa inuu arrintaas ka fikiro u imaado dowladda si wanaagsan lagu soo dhaweynayo. nimanka saaxiibada oo aan kale waxaa fariinta u diray macnaha inay ka faa'iideystaan fursaddan oo hadda si aan hadda ii soo dhaweeyo kale loo soo dhaweynayo ayagana. waxaa la rabaa inay fursaddan si fiican ugu faa'iideystaan oo inta imaadaan. saas adiga noloshii shalay aan ku jiro noloshii maanta hadda aan ku jiro waa kala duwan yihiin. nolosha hadda aan ku jiro waa nolol fiican oo maasha Allah oo wax walba ku dheehan waayo, islaamnimo ku dheehan. marka tii shalayna tii oo duurka lagu jiro mahano taas adiga tana ku faraxsanahay. wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Umar Cali Cabdi ayaa fariinta ay leedahay maalintan u diray qawaariinta ay hortaalo fursadda Abshir oo kale. sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo oo bogaadiyo oo halkan uga faa'iideysto maxkamadda ciidamada qalabka sida dhammaan ayagoo isku duuban iyo gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida. waxaan leeyahay waan idinku bogaadinaa hawshan aad qabateen, waan idinku dhiirigelinaa. sidoo kale fursaddan helay walaalkay Abshir waa nin dhalinyaro ah in muddo ahna qolooyinka cadowga ah la shaqaysanay. waxyaabaha loo sheegay oo asiga noo sheegayna waxaa ka mid ah in maaragtay la maran habaabiyey oo loo sheegay meel aan islaamnimo ka jirin in lala dagaalamayo. halkan wuxuu indhihiisa ku arkay in islaamnimo jirto, in horumar jiro, in dowladnimo jirto arkay. maxkamadda iyo wasaaradda gaashaandhiggaba oo kaashanaysa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan in cadowgu ay jab u geystaan nooc kasta ahaadaan. sidaas si la mid ahna waxay ka shaqeeyaan cadowga kuwa ka soo baxa ee raba horumarka dalka iyo dadka gaaray inay la tiigsadaan, sidaan oo kale garab ay u siiyaan, uga warqabaan, u doonaan cadowga dhexdiisana uga soo bixiyaan. taas macnaheedu waxaa tahay maxkamaddu inay wax tooga karto, waxna noolee karto. waa inay jaceylna samey karto, lana xisaabtami karto cadowga meel walba ay joogaan. waxaan idin leenahay cadowga ka soo taga, oraxda ka soo taga. maalin kasta waxaad ku jirtaan in xabadu idinku dhacdo oo xabadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo droniskooda iyo diyaaradahoodaba ay idinku dhacaan oo aad ka orodaan. waxaad heli kartaan nolol noloshaas aanta, waxaad heli kartaan nolol noloshaas ka fiican.
waxaanu ku wareejin doonaa oo senatarkiisana uu ku wareejin doonaa haddii ilaah raalli ka noqdo waxa uu ku dhisan lahaa aqalkiisa beri uu ku noolaan lahaa. waxaa laga warqabi doonaa noloshiisa, waxaa laga warqabi doonaa shaqadiisa. maxamuud cabduqaadir xaaji jeego wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya, senatar aadan cabdinaasir maxamed, gudoomiyaha guddiga amniga difaaca aqalka sare iyo hoggaanka sahanka iyo wardoonka xoogga dalka soomaaliyeed oo garab istaag u muujiyey lamaanaha ayaa garsoorka ku bogaadiyey kaalintooda. abshir wuxuu gartay inaysan waxba ka jirin waxyaabaha iyaga u sheegeen. sidoo kale waxaa ammaan mudan maxkamadda ciidamada qalabka sida. dadka Soomaaliyeed iyo nimankaas nabadiidka ah waxaan u sheegayaa maxkamadda ma aha meel kaliya lagu ciqaabo dadka waxa xun suubiya ama fikirka ay ka haystaan dadka Soomaaliyeed in wax ay ciqaabto, laakiin marmarka qaarkood sida abshir oo kaleeto ninka garta inuu ka soo tago oo reerkiisa uu la midoobo inay u fidiyaan maxaa la yiraahdaa cafis iyo markaa wuxuu u dalbay inay kala shaqeeyaan. mahad gaara u jeedinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. abshirna hadda wixii ka dambeeyo dadkiisu la midoobayaa, xaaskiisana anagaa u dhisi doono ay qayb ka yihiin wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka, iyagana siday ugu soo shaqeeyeen aada ugu mahad celinayaa. fursaddan maanta oo abshir helay ayaa idiin furan inaad dadkiina la midowdaan, inaad dadkiina ka mid noqotaan, inaad shaqo abuur heshaan. wax walbo qof muwaadin uu xaq u leeyahay ayaa xaq u leedihiin, laakiin waxaa ka horeyso fikirka aad qabtaan inaad ka soo tanaasusaan, aad ku soo laabataan dadkiina iyo dalkiina. maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxaan uga mahad celinaa oo ugu horeeya guddoomiye shoote in uu maxay ahayto oo aad uga shaqeeyo si cadaaladna uga shaqeeyo inay midoobaan dadkan. dadweynuhu cudurka xun ee qawaariijnimada ma laga yaabaa inuu daawo u noqdo jacaylka sida abshir oo kale. cabdifatax khiyaar, warbaahinta qaranka, muqdisho.